لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة. walaalkay caafimaadku waa waxa ugu qiimaha badan ee dadka caafimaadka qaba madaxooga saaran waa taajka madaxooda saaran waxaana u jeedo fiirsanayo arka dadka xanuunsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu noo sheegayaa in kalaamullaahi uu dawo yahay in qur'aanku uu dawo yahay marka qur'aanka laga yimaadana waxaan maanta ku tilmaamayaa suurad khaas ah suuradda iyada haddaad laasinto hadduu xanuunku hayo haddaad u baahanto inuu iimaankaagu ziyaado haddaad u baahanto in shubha iyo shubahaadku uu qalbigaada ka baxo nifaaq inuu qalbigaada ka baxo haddii cudurro cudwi ah oo muuqda ay ku hayaan haddii cudurro nifaaqa ay ku hayaan ducful iimaan hadduu ku hayo dhammaan cuduradaas oo dhanba hiya shaafiya iyada kaa shaafinaysa hiya alkaafiya suuraddaasa kaa kaafinaysa ibnu qayim waxa uu leeyahay muddo ayaa anigu xanuunsan ayaan waxaan joogay maka xanuunkii markuu iga tegi waayay baa waxaan soo qabsaday maa u zamzam markaasaan ku akhriyay suuraddaas markaasaan cabay markaasaan ka booday buu leeyahay markaasaa qof walba wax xanuunsan baa u tilmaami jiray suuradda iyada xadiiskii ku soo aroray saxiixaynka abi saciid al-khudri radiyallahu ta'ala an ardaah wa asaga ma arkay ku akhriyay ninkii sayidul qawm wa asagii markii la qaninay ku akhriyay oo masku qaninay ku akhriyay markaaba uu ka booday ujuurta ka qaatay suuradda iyada miyaa taqaanaa everyday bad akhrisaa laakiin adigoo qafladaysan adigoo mashquulsan adigoo maqan bad akhrisaa waxaan rabaa inaan ku tilmaamo oo suuradda aad celceliso ood ku celceliso ood u isticmaasho dhammaan xanuunadaada idil hiya alkaafiya way kaa kaafinaysaa madax xanuun hadduu ku iyada kaa kaafinaysa calool xanuun haddii ku iyada kaa kaafinaysa xoolo haddii ma taqaanaad u baahanta iyada kaa kaafinaysa iyada ayaa wax kasta kaa kaafinaysa hiya alkaafiya suuradda iyada ah ilahay markuu ka sheekeynaya fi suurati alxijr walaqad aataynaaka sabcan min almathani walaqad aataynaaka sabcan min almathani walqur'aan alcaziim aayadda markay fasirayaan abubakar cumar cataa qataada iyo cabdullaahi ibn mascuud ba intaba waxa ay leeyihiin sabca almathani toddobada soo noqnoqoto ilaahay subxana taala uu sheegayo iyo qur'aanka weyn waa suuratu alfaatixa suuradda aan kuu soo daro maxay waa suuratu alfaatixa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة داس كم إمسجر بعد ما علنتي أخرسا ولقى انت كوبكو أخرسي وحاجر ولا فربضن أو نمن رقادة أو صوبحي انت ملب إيه سوق قوشان مالون كست أي لعقتي حولها كذل دشان ومبهند دكتور آدم ومبهند وداد تلفون كاسو عقودهم كو أخرني ومبهند أذيقو اسكو أخري suuradda isku akhri awlaadaada ku akhri naftaada ku akhri reerkaada ku akhri waa suuradaha ugu waaweyn qur'aanka ka mid ah waa suuradda lagu bilaabo waa wasfa waa tilmaam waa prescription daily uu qofku akhriyo 17 jeer qofka mu'minka ah ilaahay ku xana subhanahu wa ta'ala 17 jeer laakiin markaad akhrinayso adoo salaada ku jira ma u niisata inaad caafimaado qof waxaad arkaysaa markii salaada laga baxayo imaam ii ducee sheekh ii ducee suuraddu akhri uu ducada sheekhu wuxuu ka weydiinay uu leeyahay caafimaad iyo hebel ba operation hebel baa xasan iduu uu leeyahay isla suuradu akhriyay baa ku dheer inuu caafimaad ku jiro war akhriso war xaaskaaga bar war reerkaaga bar waa taqaanay laakiin u isticmaal inaad isku daweyso oo antibiyootika iyo cirbadaha iyo kaniinada dabacris iska daa oo suuradan i'timaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caafinaya xayaaka allah bayak salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh